toddoba jeer intaad weysaysato laba ragcadood oo sunno aad tukato qiblada u jeedsato toddoba jeer suuratulfaatixa gacantaada ku akhri toddoba jeer aayatalkursi gacantaada ku akhri muxuu ahaa toddoba salliga nabiga ibraahimiga ee atixiyaadka aan ku akhrino qofkii aan awoodi karin aan heli karin dad waraaqdaas waa laba qaybood midda koobaad waxaa la yidhahdaa caalij nafsaka bima huwa aatin midda labaadna waxaa la yidhahdaa caalij nafsaka bima huwa aatin marxalada labaad waraaqdaas iyada ah lacag la-aan baan ku bixiyaa qofkii raba oo isagu inuu isku daweeyo doonaya wuu iga soo doonan karaa aniga intaan kari karay weeye waa tajribadaydii baan ka hadlaya culimada kale iyo tajribadooda kama hadlahayo barnaamijkeenna waxaa inoo fududeeyey maqaayadda s g Savana Restaurant oo ku taala moolka caalamiga Turiba ugu imaa cunto dhadhan leh howlka shirarka aroosyada iyo xalfadahaba wixii faahfaahin dheeriya fadlan kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda waayahay waad mahadsantiin mar kale waxaan kusoo noqonay dhigtay suuqiis xoog weyne qaybtii labaad ee barnaamijka isha iyo sixirka ama xasadka hadba saa u taqaanid doctore marka see looga hortagi karaa qofka intaysan waxaasoo idil ku dhicin soo dhawow jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiika wuxuu ilaahay qadara wuu dhacayaa laakiin nabiga waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ixris maa yanfacuka walaa taqul low faina low taftaxu camala shayطaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ina abuuray inagii iyo jinkaba jinka wuu qariyey inahu yaraakum huwa qabiiluhu min xayثu laa tarawnahum mukalaf buu inaga wada dhigay wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun buu ilahay yihi labadeeniba wuxuu inaga dhigay waxaa mukalaf aho ilaahay uu cibaado ku kalifay labadooduba waxaa weeyaan janno iyo cadaab buu ilaahay u hagaajistay cid walba marka waxaa weeyaan meeshaasaa yaala maraya ama kayfiyada looga hortegayo xanuunka waxaa weeye hortaga waxaa weeye cudur walba hortagiisu waxaa weeye alcaqiidatu asaxiixa waalcamalu asaxiix caqiido saxiixa iyo camal saxiixa camalkaagu waa inuu noqdo camal waafaqsan camalkii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam caqiidadaadu waa inay saxiix tahay oo caqiido saxiixa oo addoonka ilaahay mooyeen una uun qalbigiisa ku soo dhacaynin waa inuu yahay haddaad makhluuqaad iyo ashyaa ku tacalluqdo waxaa weeyaan buul caaraad gacanta ku haysaa haddaad ilaahay ku tacalluqdo waxaa weeye xisni xasiin ah ayaad dhinaca saartay lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yucjibunii amru lmu'mini ina amrahu kulahu khayr xadiiskii macnihiisii baa sidaa aha qofka mu'minka ay cajab gelaya amarkiisa wixiisoo dhan waaba khayr nicmo hadduu helo waxaa weeyaan xamida wa shakar hadduu dhibaato ku dhacdona waxaa weeya sabir waxtasab arrintaana mu'minka qofka unbaa iska leh waxaa kaloo ilaahay uu inala leeyahay subxaanahu wa tacaala falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniin waxaa weeyaan ha ka baqina ashyaada jimanka shayaadiinta uunka makhluuqaadka ha ka cabsan inuu leh ilahi subxaana wa tacaala aniga uun iga cabsada inaad wax u samayso khoof aad jin ka cabsanayso ama aad bini aadam kale ka cabsanayso oo wax daaca aad u samayso ilaahay lahaa waxaa weeye meel cidlaad ku soo dhacaysaa xirsiga xidhka waxaa weeye inaan raacno caqiido saxiixa iyo camal saxiix ah dikriga iyo wardiga soo arooray mid walba inaan meeshiisi kula nimaadno imtithaal iyo waxaa weeyaan ajir gorobsato inagoo u samaynayna ridaha ilaahayna inaan ku gaadhayno cibaado u samaynayna waxaa weeyaan magangal ilaahay u samaysanayna ayaa la rabaa inaan samaysano saasaa waxaa weeyaan lagaga hortegi karaa haddaad laakiin caqiido saxiixa iyo camal saxiix ah aadan haysanin hortag malihid meel cidla ah soomaali waxay dheheen mahmaah bay dheheen waxay dheheen ninkii indhoolka lahay markii xabadda lagu soo riday gabbaday ee mooday inuu geed ku gabbanayo waxay dheheen indhoolow meel bannaan baa taagan tahay dheheen soomaali meel cidla ahoon gabbaad lahayn ayaa taagan tahay qofkii ilaahay qeydkii ku soo dhacaya qalbigiisa ku tacalluqsanow baqriya barabinaas haddaad akhrido meel cidla aad fadhidaayo ogow sunanta iyo saxiixaynka iyo masaaniidda iyo macaajinta iyo musanafaadka haddaad akhrido meel cidla aad fadhidaa caqiidadaaduna waa inay saxiix tahay camalkaaguna waa inuu saxiix yahay sidaasaa lagaga hortegi karaa xanuunadaas
muxuu ahaa ruuxiga ah ee ka imaada dhinacaas aan tilmaanay. jazaaka allahu khayran. waad mahadsan tahay. adkaar qaas ah oo caruurta u soo aroortay in la akhriyo ma jirtaa? war farxad leh. markaska online-ka wax looga bartay abubakar sidiiq wuxuu wax kugu barayaa qaab online ah, wuxuuna qaadanayaa arday cusub oo isugu jirta dadka waaweyn iyo caruurtaba. markaska waxaa ka howlgala macalimiin khubaro ku ah habka ardayga online-ka wax loogu baro. maadooyinka lagu dhigto markaska waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka, hikaada, barashada carabiga, tafsiirka qur-aanka kariimka, axaadiista iyo ducooyinkaba. haddii aad danaynayso inaad ku biirto, fadlan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. ها نبي عليه الصلاة والسلام دعوين خاصة والمها ويلشي وأوجه وها حسن يا حسين أعوذ بكلمات الله أعوذكما بكلمات الله تامات من شر ما خلق. ودعوين دوره محوها كلا دوان أو المها إلهي لو من قال قارهان مركز صوب وقطع أما أي سيس حنيان أيات شرتا. وأنا متوفر كتاب كان لها يستوى كتاب كان لقوة لها يستوى حسن المسلم كأي قرنتاي ومتواجد. لكن وحال الربا إن إلهي لو عابد يو لقونا مجنجلة الله سبحانه وتعالى إن الدعاء وعباده عبادنا إلهي بإسكاله. وإن من سنتهي وسيلة يا أمر إلهي كسية إن تكسر ما ينسى واحد نبته وحكاء عنية إنه إلهي سبحانه وتعالى كنا أو لقاعد نجي لقوا أدون صدق إن مرته سلا صار الربا. واحد دكتور وما سنتهي ولا لبضن وحجرة قف علاجية عن هيلي كرين ama aan u dhoweyn qof cilaajiya marka qofka naftiisa muxuu ku cilaaji karaa ama uu ku daaweyn karaa? بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. برنامج كاس هوران أسوق جد بني لكن بالشدة وانو علين كرا وراق راس والتاس عالج نفسك بما هو آت. نفط هذا وحاوي كدوي وحا إيمانيا تضبط شير انتاد ويسيستو لو رقعدود سنة تكتو قبلة وجهتستو تضبط شير سورة الفاتحة قعنت هذا كواخري تضبط شير آية الكرسي قعنت هذا كواخري محوها تضبط صلي النبي إبراهيم جه التحيات كأن كواخرينو وحا ويان تضبط شير سورة محوها قل يا أيها الكافرون سورة البقرة سكستوت كو آخرين كرتو هداد مر آخرين كرتو هداد لبا آخرين كرتو هداد كلا قيب سن كرتو سورة البقرة وحاوي وعجيب وسورة الفاتحة سورة البقرة أفرت قل يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس وحاويان انتاس إيادا أنكو علي سورة الفاتحة آية الكرسي آمن الرسول iyo afarta qul ee hoose waxa weeye waa qaamuus min qawaamiis atib nabawi. waxaan ku dhigi karaa waa dictionary-yada ama qawaamiista waxa weeyaan tibbiga nabawiga ah ka mid ah oo qofka muslimka ah ku filan si dhab ah ugu filan. markaan hadda aniga hadlayana tajrubaan ka hadlayaa tajrubadaydan ka hadlayaa oon aniga waxa weeyaan waa dictionary ama waa qaamuus qawaamiis dibbi nabawiga ayay ka mid yihiin toddobadaas iyaga ah. waxa weeyaan waxayse ku xidhan tahay qof walba iyo dhudhunkiisa iyo saacidkiisa ay ku xidhan tahay ikhlaaskiisa sida camalka qofka loogu kala ajir badiyo qofba ikhlaaskiisa inta uu dhan yahay ayay quwadiisa markuu isku akrinayana ay ahaanaysaa. waxaa kaloo iyadana aan rabaa inaan dadka u sheego qur-aanka ilaahay daatadiisuu mucjis mu'athira u yahay. daatadiisa ayuu mucjis mu'athira yahay qur-aanka ilaahay. sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye waa mucjis dhinac walbay u yihiin. idan qofkii aan awoodi karin aan heli karin dad waraaqdaas waa laba qaybood. midda koobaad waxaa la yidhahdaa caalij nafsaka bima huwa aatin. midda labaadna waxaa la yidhahdaa caalij nafsaka bima huwa aatin marxalada labaad. waraaqdaas iyada ah lacag la-aan baan ku bixiyaa qofkii raba oo isagu inuu isku daweeyo doonaya wuu iga soo doonan karaa. aniga intaan kari karay weeye waa tajrubadaydii baan ka hadlaya. culimada kale iyo tajribadooda kama hadlahayo. intii aniga aan tajrubeeyey intii ugu fududayd ee qofku isaga oo shaqadiisa jooga oo gurigiisa jooga oo dantiisa wata aakhiradiisa iyo adduunkaba uu isku cilaajin karo weeye. waan hayaa qofkii u baahanna si lacag la-aan baa lagu siinayaa oo sadaqa wuu iga soo doonan karaa.
marka jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik. waad mahadsantahay ustaad, allah barakeeyo. su-aasha inoogu dambeysa ee la xiriirta dhanka dawada, maadaama aan niri qofku waa inuu naftiisa cilaajiyo ama laftiisa caafimaadka ama daawada uu ka doono, 30 sano u dambeeyeyna maadaamaad ku jirta dhankan cilaajinta, dad badan baa aaminsan inay cilaajyada ama meelaha la isku quraan saaro ay tagaan. marka dadna waxay ku leeyihin in la aado ma fiicno, naftaada inaad quraan saartaa fiican. marka yani maxaad kula taleelda qofka jecel inuu yani mar kasta jeclaado inuu subax kasta 5 bilood sanad 2 sano ku socdo meelaha cilaajyada ah, maxaad kula tali lahayd? ma naftiisa inuu isku daweeya isku tufaa fiican, mase inuu dadka cilaajyada aadateebaa fiican khibradaada? jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiika. su-aashaasi waa su-aal maaragtay wajiiha oo aad iyo aad u qiimo badan. qofku dhakhtarka wuxuu tagaa kolkuu asaga wax isu qaban waayo. hadduu qofku asaga wax isu qaban karo, haddee baahi ma jirto, ama dhakhtarkan caadiga ha noqoto ama cilaajka iyo qur-aanka iyo kitaabka ilaah iyo sunnada la isku daweyn ha noqoto. kolkuu waxaan adig kaa tambato baad u baahan tahay gurmad. ciidan haddii la jabsado, haddee gurmad buu rabaa, cid kaalmaysa iyo maarata inuu raadsadaa la rabaa. qofku marka waxaa weeyaan hadduu asaga arko inuunan isku filayn oo uunan asaga isgaari karin, waxaa weeye waa inuu u tago qof cilaajiya oo qur-aankii iyo sunnadii iyo dhirta mubaaxa ahee cilmi ahaan wax ugu daweynaya inuu u tagaa la rabaa. soomaaliduna waxay tidhahdaa nina isagu ismaba dhabiibay dhahaan qof oo waxyaalo badan bay u hagaajisteen oo ay rabaan inay maaragtay wax ku qalqaloocsadaan. qofku marka hadday suurtagal tahay inuu asagu iscilaajiyo, wixii cilmi u leeyahay asagu isdaweeyo, falyatafadal, waa sidii loo baahnaa. hadduu kari waayana qofka uu caqiidadiisa iyo cilmigiisa iyo camalkiisa uu ku kalsoon yahay ee isleeyahay wuu kaa caawin karaa inuu u tago ayaa la rabaa oo uu maaragtay iska daweeyo. ama muddada qofka uu ku bogsanayo de ilaahay baa haya. waxaa dhici karta qof 20 sano jirana hal marood ku tuftay inuu ilaahay ku bogsiiyo, wayna soo martay 100 iyo 1000 in ka badanba wayna soo martay. qof waxaa weeye inuu muddo kugu qaato inaad maaragtay ilaahay ducadii kaa aqbalo. qof walba ilaahay xilligu ugu talagalay wax walba siduu ilaahay u talagalay, laakiin bini aadamku wasaaishaas bannaan ee diinta ku bannaan unbaa la rabaa in maaragtay la qaato. waxaan uun dardaarmi lahaa, war qof walba inta aad adiga taqaano ha dhaafin cilmigaaga. qad axsana man intaha ilaa maa samic. qof walba intay aqoontaadu dhan tahay ku joog oo ummadda ku anfac. in aadan aqoonin inaad isku kalifto, ilaahayna kuguma adoonsanin. waxaana laga yaabaa wax aan ciribteedu lagu mahadinaynin inay kugu dhex ridaan laga yaabaa. oo haweenkeena iyo hooyooyinkeen iyo odayaasha soomaalida mahmaayo cajiibo waxay leeyihiin. carabtuna qaar carabtu waxay dhahan man dakhala bikayri fanni ataa bilcajaa'ib bay dhahaan. qof hadduu fannigiisi fanni aan ahayn uu galo, cajaa'ib buu la imaadaa bay dhahaan. soomaalidana mahmaayaheeda oo rag iyo dumar ba isticmaalaan waxaa ka mid a islaamtu meelayn ka uunsan jirin hadday ka uunsato meelaynay ka guban jirin bay ka gubataa bay dhaheen. marka waa xikmad cajiiba oo waxay ku tusinaysaa qofkii wuxuunan cilmigeeda lahayn hadduu galo ay macquul tahay inay oga imaato wakiimo iyo cawaaqib wakiima inay oga imaataa dhici karta. war qof walbo ummadda meeshaada ayaan looga soo dhicin. inta aad garanaysa ummadda ku anfac, wixii aadan garanayninna ciddii garanaysa maaragtay ku wareejiya. waxaad tidhahdaa meel hebel ama hebel baa igu dhaamo meeshaas. aad cilmiga ma aqaanana waa cilmi. waxaa weeye qofka muslimkaana wax uga qiimo badan inuu badbaadsado aakhiradiisa way muxuu ahaa ma jiro. aad baa u mahadsan tahay, wajazaaka allahu khayran. aad iyo aad baad u mahadsantaha. cilmigan kaa faa'iidnana ilaahay ajarkeeda ha ku siiya, miisaankaaga xasanaadkana allah kugu buuxsho. ugu dambeyntii walaalo fara badan baa commentiga wicitaanka qabashada wadooyinka na weydiiya. wadaadka xooga weyn xaguu fadhiistaa oo laga helaa? marka haddaad iga tilmaam wanaagsan tahay bulshada soomaaliyeed, warqadaha aad hadda haysay iyo dhammaan daawooyinka kaasoo doonan kara ama aragtidaada raba tala kaa qaadanaya, xaggey kugu soo hagaagi karaan? baaraka allahu fiikum, jazaaka allahu khayran. adeerada ani waxaan deganahay xaafadda soomaalidu degan tahay islii, jidka labaad ama loo yaqaano 2nd Avenue. afgaalaadka aniga iskuma fiicnin haddaan laaximiyo. lodgeka loo yaqaano Madina Guest House, halkaas ayaan deganahay. muxuu ahaa markii dhinaca airforceka loo soo galo wad isgoyska 5ka airforceka xaggiisa markii loo soo galo baloodka afraad Madina Guest House ayaa la yidhaahdaa. guriga reexaji cali weeye. halkaasaan aniga deganahay. 2 duhurnimo
ilaa maqribkii baan shaqeeyaa waqtiyada kaleeto howlo kaleetaan ku jira aad baa u mahadsan tahay waxaan u malayn tilmaan intaa ka badan adiguna waad sheegtay anna waan ku celiyey intaa ka badan ma dhihi karo waa wadada muxuu ahaa shanaad islii xaafadda muxuu ahaa jidka 5ka ama wadada shanaad isgoyskeeda markaad imaato second avenue wadada labaad isgoyskeeda markaad imaato dhinaca saldhigga ciidanka baloodka afraad weeye Madiina Guest House baa la yiraahdaa reexa jacali baa iskale barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran aad iyo aad baad adigana mahadsan tahay cilmiga iyo khayrka iyo wanaaggan ka faa'iidnana ilaahay ajarkeeda ha ku siiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Healthy Gate Hospital waxaa ka howlgala dhaqaatiir kala duwan sida dhakhtarka la soconaya hooyada uurka leh ilaa ay ka dhalayso iyo dhaqaatiirta caruurta oo isugu jira bukaan jiif iyo bukaan socod intaba sidoo kale waxay hayaan dhalada caruurta lagu kobciyo waxayna furantaa 24 saacadood Healthy Gate Hospital ugu imaw shaybaar casriya ha iloobin farmashiyada daawadu dhameystiran tahay isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel wadada Muratina Road kasoo horjeedka Buwani Police Station wixii faahfaahin oo dheeriya fadlan kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda